wararkii ugu dambeeyay ee suuqa cryptocurrency hoos dhac ku yimi suuqa crypto cabsi runtii aad loo qabo in suuqa hoos u sii daato iyo fursadaha dabcan qarsoon ee suuqan ku gadaaman ayaan isla arki doonaa soo dhawaada akhyaaray maanta waxaan falqeynaynaa wararkii ugu dambeeyay isbuucan iyo runtii isbedelka suuqan cryptocurrency ku socda iyo runtii casaankan suuqa uu maray hoos dhaca weyn ee suuqa runtii uu ku jiro ugu horeyn soo dhawaada saaxiibayaal bitcoin hoos ayay u dhacday altcoinska kale ee aan bitcoin wixii aan bitcoin ahayn altcoins baa la isku yiraahdaa iyaguna runtii way raaceen oo hoos bay u daateen sababtoo ah bitcoin baa boqor u ah boqor haddii bitcoin haddii hoos soo dhacdo coinska kalena aad bay u soo daataan dad baa runtii cabsi gashay oo waxay sameeyeen waxa weeye inay iska iibiyaan coinski marka dabcan dadka qaarna waxay leeyihiin arrintan suuq inuu soo daato fursad dahabiya weeye marka haddaba su'aashu waxay tahay maxaa keenay hoos u dhaca maxaase laga rajeynayaa suuqa maalmahan soo socda wararkii ugu dambeeyay ayaan isla eegaynaa isbuucan runtii si guud bitcoin wuxuu sameeyay hoos u dhac degdeg ah runtii bitcoin aad ayay hoos ugu dhacday dabcan waa dareemaysaa altcoin meesha ugu sareysay bitcoin gaadha waxay ahayd 120,000 waxay soo taabatay 60,000 bay soo taabatay macnaheedu waxa weeye half ka mid ah qiimaheedii ayay lumisay 60,000 ayay soo gaartay dadka qaarna waxa la leeyahay inay hoos u socdaan oo hoos u dhac aad baa loo baqayaa oo waxa weeye baqditaanku aad buu u sareeyaa marka hoos bitcoin u soo daadatay ethereum iyo altcoinska badankooduna way raaceen oo hoos bay iyaguna u soo daateen suuqa guud wuxuu galay runtii xaalad kacsan oo suuqa waxa weeye inuu aad casaan u muujiyo coinskuna aad u soo daataan runtii laakiin tani ma aha markii ugu horeysay ee crypto ay sidan ay ku dhacdo laakiin waa suuq isbedel badan marna kor buu aadaa marna hoos buu jiraa sida aan isla garanayno wararka dhaqaalaha caalamka sixir bararka iyo suuqyada kale ee sida stockska dhammaantood waxay saameyn ku yeesheen runtii suuqa crypto oo qayb waxay ka yihiin in suuqa uu soo daato waxaan isla eegaynaa maxaa keenay horta hoos u dhacan in suuqa hoos u soo dhaco waxyaabaha keenay maxaa ka mid ah dhowr sababood baan soo qaadanaynaa ama saddex sababood baa ugu waaweyn sababta koowaad waxa weeye cabsi iyo panic selling oo ah dadkii coinska haystay in ay ku dhacday marka maadaama suuqa hoos soo daatay inay gashay cabsi ah in yaada khasaarin oo ay keentay marka inay coinska iska iibiyaan mar haddii coinka la iibiyo qiimo hoos u soo daadanaya sababtoo ah shaygii waa la iska gaday marka shayga suuqa qiimihiisii aad suuqa loo iibiyo hoos buu soo dhacaya marka qiimuhu bilaabo inuu dhaco dad badan waxay sameeyeen go'aan degdeg ah waxay iibiyeen iyagoo cabsi qaba taasi waxay sii kordhinaysaa hoos u dhaca runtii dad badan ayaa waxay iibiyeen marka coinska sii iibiyeen qof waxa laga yaabaa bitcoin markay 70,000 maraysay 80,000 maraysay inuu sii wareede 80,000 yeeso kula dhaafin halka ay kugu joogto oo iska gaday dad badan baa iibiyay marka coinka markii hadii la iibiyo qiimihiisu hoos buu soo dhacaya sababtoo ah maxay de coinka waxa weeye coins badan oo la haystay oo aan cid haysan ayaa suuqa ku jira oo runtii marka qiimihiisu hoos ayuu u soo dhacaya sababta labaad ee keentay waxa weeye weyliska dadka la isku dhaho ama dadka suuqan cryptoda lacagta ugu badan ama coinska ugu badan haysta oo runtii iyaguna iska iibiyay maalgashadayaal waaweyn marka iibiyaan qiimuhu si lama filaan ayuu hoos ugu dhacaa suuqana runtii aad buu u gariiraa oo waxa laga filay isbedel weyn ayaa laga arkaa marka taasina waa dad badan oo coin haystay tusaale sida bitcoin oo kale aad u haystay ayaa iska iibiyay iyagoo dabcan siyaabo badan qiimeynaya taasina waxay keentay hoos u dhaca sababta saddexaad ee keentay waxa weeye dhaqaalaha adduunka runtii marka dulsaar sare jiro iyo hubanti la'aan dhaqaale dadku waxay ka baxaan maalgelinta khatarta ah cryptona waa kan ugu horeeyay ee dabcan dadku iska iibiyaan marka suuqa maadaama waddanka dhaqaalaha adduunka dhan dhaqaale la'aan baa laga cabanaya dulsaarkiina aad buu u badan yahay interestiga wadamada aad buu u sareeyaa dhaqaalaha aad buu u liitaa siyaasadii hawada aad u kacsan oo kor u kacsan waxaas oo dhan waa wax factories keenay marka inuu suuqu uu hoos soo dhaco marka saddexdaas sababood baa ugu waaweyn sababaha keenay suuqa inuu hoos dhac sameeyo hoos dhacni muxuu ka dhigan yahay marka inaga dadka crypto daneeya haday aynu nahay in suuqan hoos soo dhacay maxay anaga nooga macno tahay ma hoogiyo baabay noo tilmaamaysaa iyo in wax weeye suuqii aynu khasaare la kulanay ma waxay noo tilmaamaysaa wax weeye suuqan inuu yahay suuq ay baaba'ay oo wax weeye runtii aad u liidanaya oo ay tahay in laga baxo maxay ka dhigan tahay dadka crypto daneynaya maxay uga dhigan tahay halkan si fiican u dhageyso marka hoos u dhaca mar walba ma aha masiibo taariikhda crypto inta la soo maray hoos u dhacu waa jiray kuwa ka sii xunna waa la soo maray runtii oo hadda ka sii xun kadibna korar ayaa ku xigay marka waxaan waa wax dabiici ah waa sunna cryptocurrency marna inay hoos soo dhacdo marna ay kor u kacdo waa sunnaha suuqan uu ku shaqeeyo dadkii sabray faa'iido ayay heleen sida taariikhda hore loo hayo dadkii cabsi galayna runtii way ka qoomameeyeen sababtoo waxa jira dad coinska meeshii ay haysan lahaayeen iska iibiyay
dabcan coinkii oo qiimo sare ku jooga inay qiimo hoose iskaga iibiyaan kadibna ay ku khasaareen way dhacday dad badan oo samray coinskooda haystana dib bay uga faa'iideen marka mar walba suuqan dib wuxuu sameynaya waxa weeye dib u gurasho iyo inuu dib isku habeeyo marka adigu ha degdegin kaliya oo suuqa ha ka hor dhicin maxaa laga rajaynayaa isbuucan maxaa la rajaynayaa maxaa soo socda dadka dalfilaya isbuucyada soo socda saddex arrimood ayaa runtii dhici kara oo la rajaynayaa suuqu inuu deganaan inuu galo oo sida hadda suuqu hoos ugu soconayo in xoogaa wax isbedelaan ayaa la rajaynayaa qiimuhu inuu kor iyo hoos yar ayuu sameeyo oo marna kor wax yar aado marna uu wax yar hoos soo laabto ayaa la rajaynayaa laakiin uusan hoosna u soo dhicin korna u dhicin waa waxyaabaha la saadaalinayo weeye sida marka aynu soo analyze gareynay runtii ay noo soo baxday dad badan analyze gareynayaan runtii ay ku qiimeynayaan qodobka labaad ee la rajaynayo waxa weeye koror degdeg ah dad baa waxay leeyihiin waxa weeye in suuqa inuu kor u kaco iyo waxyaabo badan runtii la tusaaleynayo la soo qaadanayo haddii war wanaagsan yimaado ama maalgashi cusub soo galo suuqa runtii waxa la rajaynayaa bitcoin wuxuu saameyn karaa waxa weeye inuu kor u kac sameeyo lama degdeg ah marka maadaama bitcoin wax badan la iibiyay dad badan inay markaa soo gashadaan fursadda maanta 60 kun maraya in shirkado badan iyo dad badan iyo dawlado badan ay maal gashadaan dhaqaale soo galiyaan iyagoo raba janiska inay ka faa'iideystaan si altcoins markuu gaaro ay iskaga iibiyaan marka halkaasna waa la rajaynayaa in dhaqaale badan suuqa soo galo oo kadibna bom uu suuqa kor u kacana waa la rajaynayaa fursadda dadka dabcan dadka suuqu fursad buu siinaya dadka baranaya iyadana oo dadka barashada ku jira xilliga suuqu hoos u jiro hoos u dhacayo waa xilliga rabo qofku inuu si fiican u fahmo suuqa inuu daraasayo cilmiga inuu soo barto inuu maal gashado xilliga la doonayo waa fursad uu bixinayo haddii aad tahay qof cusub bara suuqa faham ha diiso xilma la iibsadaa dadka cryptocurrency dhanka hadlayaan ay ku sheegayaan waa hadda xilliga coinsku hees joogan ayaa la iibsadaa si markuu kor u aado adigu aad faa'iido uga hesho marka hadda ay oo kale laakiin ha ku maalgelin lacag u baahan tahay ilmaha caanahooda iska gelin iyo lacag ka maarmi kareen ha qaadan go'aan adigoo xanaaqsan ama cabsan macnaha adigoo aan cabsanaya ama wax weeye go'aan degdegana mar walba go'aankaaga ka fiirso ku soco qorshe samir yeelo waxbaro ka hor inta aadan talaabo qaadin intaas runtii waa tala saaxiibtinimo oo aan ku siinayno xilliga suuqa waa la maal gashan karaa laakiin lacagta aad gelinayso maadaama suuqa laga fiido hoos soo dhici karo lacagta aad gelinayso waa inay tahay lacag aad muddo sugi karto bil inta aad muddo aad sugi karto si suuqa dib ugu soo laabto dee suuqa uu kor u kaco si aad faa'iidada aad doonayso uga hesho ugu dambeyn saaxiibayaal marka haddii aad doonayso wararka suuqa oo la fahmi karo falaqayn dhab ah iyo casharada runtii qof walba fahmi karo youtube ka runtii subscribe noo saar waxaan kaga hadalnaa online business-ka iyo horumarinta shakhsiyadda marka waxaan ka rajaynayaa saaxiib nagu soo biir subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka like saar comment waa noogu reebi kartaa coinska iyo sida aad wax u aragto